أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه. رب علمنا بما جهلنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا، آمين يا رب العالمين. إخوتي الإسلام، darsigeennan maantana waxaan ka bilaabi doonaa in sha allah aayadda 15 ee suuratu lmutafifiin ka mid ah. casharkeennii hore ee casharkan ka horeeyey waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga warramay ciqaabka ay yeelan doonaan dadka miisaanka hadduu yahay mid la beegayo iyo mid la bardaaminayo kuu doonaba ha noqdee dadka nuqsaamiya cadaabka ay leeyihiin iyo ciqaabka ilaahay marin doono iyo sida ilaahay ula dagaalami doono arrinkaa waa laga warramay. waxaa kaloo laga warramay qowmka faajiriinta la yidhaahdo oo xuduudda ilaahay aan ku joogsanaynin ee markay kalaamka ilaahay maqlaanna aflagaadeeya ee yidhaahda waa been iyo sheeke bereley laga soo naqliyey dadkii hore iyo asbaabta qur'aanku qalbigooda u geli la'yahay ee qur'aanka iyo heestu ay isugu mid noqdeen ee qur'aanka iyo majaajiladu ay agtooda ka mid noqdeen oo bal qur'aanku uu kala liito waxyaalaha majaajilada iyo waxyaalaha heesaha ah. sababta ugu wacan baa ilaahay sababeeyo cileey in qur'aanku uu la mid noqdo sheeke bereley iyo dhegdheer baa sidaa tidhi iyo diin iyo dacwaa baratamay iyo in ilaahay kalaamkiisa laga hadlo dadka ay u gudboon yihiin ee labadaa masale u siman yihiin. wax sabab baa jirta, cillad xaggooda abaa jirta. cilladaa xaggoodiihina waxa weeyaan markay dunuubtii ku maydheen ee ka sariigan waayeen ee ay ka joogsan waayeen baa qalbigii raan baa fuulay, wuu daxalaystay. qalbigii baan kolkaa la xidhiidhi karaynin qur'aanka iyo anwaartiisa. taasaa sababta keentaye qur'aanku macnihii iyo macaankii uu lahaa muu luminin ee sidiisii buu kalaamkii ilaahay casiis u yahay. ee cilladda waxaa keenay waa qalbigooda oo dunuubtii ay ka qaalib noqotay darteed. ilaahow qalbiyada noo sifee. intaasaa casharkeennii hore ugu dambeysay. casharkeennana maantana wuxuu ka bilaabanayaa qowmkii yidhi kalaamka ilaahay wuxuu la mid yahay asaatiir alawaliin ku macneeyey oo yidhi waa sheeke bereley carruurta iyo dhallaanka lagu maaweeliye xaq iyo xaqiiqatoona ma ahan. kuwii sidaa u badheedhay ee ilaahay ku dhiiraday oo kalaamkii ilaahay ka joogsan waaye inay aflagaadeeyaan abaalka ay heli ayuu ilaahay kaga warramayaa casharkeennan qaybta hore. qaala allahu tabaaraka wa tacaala, ilaahay wuxuu yidhi kalla, arrinku sidaa ku socon maayo, arrinku sidaasun ahaan maayo in ilaahay qur'aankiisa la aflagaadeeyo oo kalaamkii ilaahay laga xishoon waayo oo haddana sidaa awliye ilaahay lagu ahaado oo ilaahay ku karaameeyo khalqiga bini aadmiga cusaada ahee sidaa ah dhici maysa baa ilaahay leeyahy. in kalaamka ilaahay oo sidaa aflagaadadaa lagu hayo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka qiiroon waayo. ilaahay waa hayuur subxaanahu wa tacaala. waxaa laga hadlaye la aflagaadaynayana waa kalaamkiisii casiiska ahaa. kuwa caynkaa yidhaahda maalin baa ilaahay la sugayaa. maalinta qiyaamo weeye. maalinta qiyaame
mujrimiintu ilaahay wejigiisa arki maayaan. waxa ilaahay ku ciqaabayaa in laga maanaco inay wejiga ilaahay arkaan. muslimiintana ilaahay wuxuu ku sharfayaa inuu ilaahay jalaalkiisa tuso oo kashfiga isooga qaado oo ay ilaahay subxaanahu wa tacaala cayaan u arkaan. arrinkaasina uu u noqdo siyaado iyo farxad dheeraada markii ilaahay abuuray ay arkaan. ilaahay qalbigooda wuxuu ka buuxinayaa farxad ayuu ilaahay qalbigooda ka buuxin doonaa. gaalada iyo mujrimiintu se farxaddaa ilaahay maalintaa bixinayo way ka qadi doonaan maadaama ilaahay kalaamkiisii ay aflagaadeeyeen. kalla ha ka yaabin baa ilaahay yidhi warku sidaa ku socon maaye innahum gaalada iyo mujrimiintu can rabbihim ilaahay xaggiisa yowma-idin maalinta qiyaame lamaxjuubuuna lawallaahi baan ku dhaartaye maxjuubuuna waa laga maanacayaa, waa laga qarinayaa, xijaab ayaa laga saari doonaa, ilaahay ma arki doonaan. humma intaa ciqaabkaa markay dhadhamiyaan oo ay ka qadaan aragtida ilaahay la arkayo maalinta qiyaame, innahum iyagu haddana la saaluu waxay geli doonaan oo wallaahiya aljaxiim naarta ololka badan leh ayay ku xaroon doonaan oy geli doonaan. humma innahum iyagu haddana markay aragtida ilaahay ka qadaan la saaluu kuwa geli doono weeyaan aljaxiima naarta jaxiima ayaa abaalkoodu noqon doonaa. humma yuqaalu markay cataabaan ee ay qayliyaan ee cudurdaaro inay sheegtaan ay damcaan oo ay aada iyo aada u cataabaan baa ilaahay malaa'igtiisu la hadlaysaa. zamaaniyata jahannam ayaa la yaabaysa calool nuglaantooda iyo sabir daraantooda iyo adkaysiyaridooda. cadaabka ku baxaya ayaan lala aamusi karaynin. marka ay halacdhoomaan oo ay gubtanyo iyo kulayl iyo hanfi iyo haraadba ay arkaan iyo gaajo aan looga jamcinaynin ee ay catow iyo qaylo ku dhuftaan oo ay qayladu isla oogsato ayaa malaa'igta cadaabku la hadlaysaa. humma yuqaalu markaasaa lagu odhan doonaa haadaa shaygan aad ka cataabaysaan ee ka cabaadaysaan alladii kii weeyaan kuntum ahaydeen bihi isaga tukadibuun, waa kii la idinku kari waaye inaad rumaysaan eed beenin jirteen. waa maxay catowgani? waa maxay cabaadkani? yaa isgaadhayba sawdinkii lahaa ma jiro oo adkaysta kaasaa jiray oo waa taa aad arkaysaanba eh. humma yuqaalu waxaa lagu odhan doonaa goortay qayliyaan gaaladu iyagoo naarta ku jiray mujrimiinta iyo dembi qabayaalku, waxay malaa'igta ilaahay ku odhan doontaa haadaa cadaabkanaa ku jirtaan eed u adkaysan la'dihiin alladii cadaabkii weeye kuntum a ahaan jirteen adduunyadii bihi cadaabkan tukadibuuna sawtii la idinku taag waayo war jooga, sawtii la idinku maaro waayo war rumeeya, waxa dambeeyaa xisaabbaa ina sugaysa cayaayirla inooma abuurine war ka daaya, kibirkan iyo isqaadqaadkani idin wadi maayo. markii la idin lahaa waxba kama jiraano waa sheeke bereley sawdinkii odhan jiray maaha, adkaysta ilaahay baa rag idinka dhigay naaqusyaal yahow. kalla intaa markuu ilaahay ka warramay ayaa dadkii saalixiinta ahaa iyo sida ilaahay uu ugu nicmaynayo iyo naxariista ay ku jiraan iyo raaxada ay ku jiraan halka qowm cadaabkaa catowga iyo qaylada baday ilaahay uu geliyey ayaa goortana laga warrami doonaa. kalla arrinku sidaa ahaan maayo oo bini aadmiga gaalada inay sidaasun hallaasigaa isooga socdaan dhici mayso. qushi iyo aniga layma abuuran iyo dan iyo heelle kama lihi arrinkaasu isbixin maaya baa ilaahay leey. waxaanse idiin sheegay inna kitaaba alabraari dadka baariyaalka ah oo amarka ilaahay u dhega nuglaaday la fii ciliyiina diiwaankoodu meesha ciliyiinta la yidhaahdo waa darajo sare 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 oo jannatulfirdowse ag ku taalla ayaa diiwaankooda la geynayaa baa ilahay yihi subxaanahu wa tacaala. mu'miniinta baariyaalka ah ee ilaahay amarkiisa u dhega nuglaaday rabbigooda u baariga noqday kitaabkooda iyo diiwaankoodu la fii ciliyiina martabo sare ayaa la dejin doonaa
wamaa adraaka maxaa ku ogeysiyey ruux yahow maa alciliyuun ciliyuun waxa looga jeedo miyaad garanaysaa maxaa ku ogeysiiyey ilaahay baa macnaynayo ilaahay wuxuu leeyahay ciliyuun waxaan uga jeednaa kitaabun waa diiwaan marquumun la xardhay oo aan la masixi karaynin yashhaduhu lmuqarabuuna marka diiwaankaa ruuxa lagu darayana waxaa ka markhaati noqonaya muqarabiinta ilaahay u dhow ee malaa'igta ah ayaa daawanaysa oo maalin walba u shir imanaysa oo albamkaa muslimiinta maalin walba ciddii ku soo biirtay ayay daawanayaan marka lagu qorayana marag iyo markhaati bay ka ahaanayaan waa diiwaan albam oo kale ah oo taariikhdii mu'miniinta soo dhimatay ay ku qoran tahay malaa'igta eebbe ayaa timaaddo oo diiwaankaasay daawadaan oo ay fiirsadaan marka la qorayana shahiid iyo markhaati bay ka yihiin ruux waluba ee mu'minihi markii uu dhinto ruuxdiisa waa la gelbiyaa samaawaadka sare ayay malaa'igtu la aadaa samaawaadka 7 ah marka laga gudbo ayaa meesha ciliyiinta la yidhaahdo diiwaanku yaallo ayaa ruuxdaa la geeyaa marka la qorayo malaa'igta sare ee muqarabiinta ah ayaa markhaati ka noqota malaa'igta kalena way u daawasho timaada ruux kastooo dhinta caalamka sare waa laga farxaa malaa'igta muqarabiintiihna daawashay u yimaadaan marag inay ka ahaadaan bay u yimaadaan martabadaa iyo karaamadaasay yeelanayaan muslimka ilaahay intuu adduunyada ku nool yahay u dhega nuglaaday ina alabraara qoomka baariyaalka la yidhaahdo ee ilaahay amarkiisa raacay la fii naciimin waxay ku sugan yihiin meel lagu badhaadhay oo nicmo iyo barwaaqo ah ayaa la geyn doonaa calal araa'iki goorta ay haasaawayaanna calal araa'iki sariiro korkood ayay yanduruuna wax ka fiirsanayaan oo mararka qaarkood ilaahay wuxuu u furayaa telefishin ilaahi ah oo naarta laga soo gudbinayo oo muslimiintu halkaa ka daawanayaan oo hebellada cadaabka ku jira ay garanayaan hebel iyo hebel ay u garanayaan oo saxariirka iyo dhibaatada cadaabka ah ee ku furan marka ay daawadaan marba malaa'igtu si ay cadaabka ugu bedelayso halkaasay ka daawanayaan kuwii adduunyada ku cayaari jiray ee cadaabi jiray ee xabsiyada ku guri jiray ee markay arkaan maxaanku dhaha ku istihzaa'i jiray ee ku kaftami jiray cadaabkaa marka lagu hayo iyana way farxayaan mu'miniintu halkaasaanay ka daawanayaanoo xidhiidh baa ilaahay uu ka dhexaysiinaya telefishin ay daawadaan mu'miniintu marka ay daawanayaan telefishinada ama ay iyagu wada haasaawayaan oo sheekaysanayaan mu'miniintu sariiro aada iyo aada u qaaliya oo quruxda aada yaabto aan la qiimayn karaynin qiimahooda iyo shacnigooda iyo miisaankooda aan cidi macnayn karaynin bay ku dengiigaan oo ay yanduruuna wax ka fiirsanayaan baa ilaah yidhi tacrifu haddii aad indhaha saarto qowmka jannada ku jira tacrifu markiiba waad garanaysaa fii wujuuhihim wejiyaalkooda ayaa kuu sharxaya nadrata naciim inay haystaan aragti iyo nuur nicmaystay nadra waa iftiinka marka waa taqaan adduunyadaynu ku ognahayba dadka ladan ee hantida leh ee raashinka macaan cuna iyo ninka qaadaama dhergaha ah ee xamaalka ah ee cadceeddu ay maxaanku idhahdaa jirhkiisii ay gubyoodka u yeeshay waa la kala gartaa nin walbaba meeshuu ka soo toosay baa sharxaysa wuxuu yahay marka ilaahay wuxuu yidhi haddaad arki lahayd dadka jannada ku jira cidba maad su-aasheen xaaladda ay ku sugan yihiin iyo nicmada ay ku sugan yihiin tacrifu waxaad fahmaysaa fii wujuuhihim wejiyaalkooda kuu sharxaya nadrata naciim nicmada iftiinkeeda ayaa wejigooda ka soo birqaysa baa ilaahay yidhi nadrata naciim yusqawna min raxiiq waxa sharaab looga dhigaa dhabaqa khamrada ah ee saafiga ah ayaa sharaab looga dhigaa dhabaqa waxaa la yidhaahdaa waa sharaabka saafiga ah ayaa raxiiq la yidhaah yusqawna waxay cabbayaanoo sharaabkooda laga dhigaa min raxiiqin sharaabka raxiiqa la yidhaahdo iyo khamri saafiya oo aan ur iyo qarhmuun lahayn ayay cabbayaan sharaabka ay cabbayaan makhtuumin wuu daboolan yahay moor baa ku go-an iyaga hortoodna cidima furin
waa sharaab la moorgareeyey oo iyaga hartood gacan furtay aanay jirin makhtuum weeye wuu xidhan yahay oo waa moorgaraysan yahay waxaa ku xidhan bacdi ayaa ku xidhan baa ilaahay yidhi sharaabka ay cabbayaan raxiiq baa la yidhaah waa dhabaq saafi ah oo khamri iyo wuxuu doonaba ah makhtuumin oo weliba moorgaraysan ayaa lagu soorayaayo aan gacan bini aadmi iyo tu kaleeta toona aanay uga horaynin khitaamuhu markay heensanayaanay sii dhammaysanayaanna gebagabaha kabashada ugu dambaysa miskun udgoon badanaa oo khamriga adduunyada marka aada ursato daasadiisa qarmuun ayaa maskaxda lagugu dhufanayaa khamriga aakhiro marka ay sii heeminayaan udgoon ashqaraar iyo yaab badan baa lagu khatimayaa baa ilaahay wa fii daalika nolosha sidaas ee ilaahay uu sharxay wa fii daalika taa aan ka warannay falyatanaafas ha u baratameen almutanaafisuuna dadka baratamaya in uun haddii ay ididiilo aada qabto inuun haddii aada doonayso asaagaa inaad wax la qaybsato baa ilaahay leeyahay marley haddii aada baratamayso ood mooral u haysa inaad asaagaa la baratanto taasaa mudan inaad kula baratanto nolosha inaad ku cidhiidhido asaaga oo aad kaga horaysa isku day baa ilaahay leeyahay maal aad tacabtay oo ilaahay aanu sidii kuu u tacabku yidhi aanad u tabcin oo hadhow meel cidla aad kaga dhaqaaqdaa baratan mah wa misaajuhu waxaa dib la inoogu celiyey shaygan khamriga ahee lasoo moorgareeyey barax baa ku jira il aada u qiimo badan il jannada ku taalla oo tasniim la yidhaahdo oo darajo sare leh ayaa lagu barxay oo khamrigan dadka baariyaalkii ay cabbayaan iyo sharaabka dadka baariyaalkii cabbayaan geedka lagu barxay wuxuu ka soo baxayaa il jannada ku taalla ishaa jannada ku taallana waa isha ugu sidata macaanka iyo udgoonka iyo shay kastaba isaga oo geedka maxaanku dhaha ishaasi saafi tahay oo aan wax kale lagu darin muqarabiintaa si gaara u cabto lagu sooraa sooriyada muqarabiinta wax ka mid ah ayaa khamriga dadka baariyaalka ah loogu barxaa si ay u udgoonayso iyadoo aan wax kale lagu darinna muqarabiinta iskale halkaa waxaan ka fahmnay muqarabiintu inay ka darajo sarreeyaan baariyaalka waa ambiyadii ilaahay iyo shuhadadii iyo saalixiintii kuwaas allah inaga yeele markaa dadka baariyaalkiihi khamrada ay cabbayaan isha tasniimka la yidhaah ayaa lagu barxay ishii tasniimka ahayd baa ilaahay inoo macnaynaya isha tasniimkii caynan waa il yashrabu ay cabbayaan bihaa ishaas almuqarabuuna muqarabiinta iyaga waxba lagagama daro iyada oo soo cabay cabbaan darajada haystaan darteed ina aladiina ajramuu kuwa ilaahay ina aladiina kuwa ajramuu dembi qabayaalka noqday ee ilaahay ka fogaaday kaanuu waxay iyagu noqon doonaa kaanuu waxay ahaayeen min aladiina kuwa aamanuu iimaanka laga helay bay yadxakuuna adduunyadii ku qosqoslayeen aakhiro marka la joogo ayuu ilaahay ka warramayaa sida loo abaalmarin doono mujrimiintii ku istihzaa'i jiray ku cayaari jiray mu'miniinta adduunyada ku cayaari jiray tii baa ilaahay ka warramaya abaalkooda sida looga goosan doono ina aladiina ajramuu kuwa dembiga qaba ee dembiilayaasha adduunyada ahaa ee ilaahay dembiga ka galay kaanuu waxay ahaayeen dunuubtoodana ka mid ahaa yadxakuuna kuwa ku qosla min aladiina aamanuu kuwa mu'miniinta ah bay ku qosqosli jireenoo ay xaqiri jireen wa idaa maruu bihim marka ay muslimiintu soo maraan meel gaaladu ay fadhidana yatakaamasuuna way isu iljabin jireen gaaladu abaajahal iyo ragga la midka ah markay sayidinaa cali iyo maxaanku dhaha bilaal iyo ragga la midkii ay soo ag maraan ayay ilqoodha isooga iljabin jireen gaaladu iyaga oo raba in lagu baraarugo xantooda kaanuu waxay ahaayeen waidaa maruu bihim markay soo maraan muslimiintu meel gaaladu fadhido yatakaamasuuna waa la isu iljabinaya waida nqalabuu gaaladu markay ku noqonayaan ilaa ahlihim ehelkoodi iyo guryo noqod markay noqdaane xaggii xaasaska la aadayana waida nqalabuu markay gadoomaan oo fadhigii ay muslimiinta isugu sanqanayeenay ku xamanayeen markay ka dareeraan ilaa ahlihim ehelkoodana ay aadayaan inqalabuu
way noqon jireen oo guryahooday aadi jireen fakihiina iyaga oo ku sii raaxaysanaya hadalhaynta muslimiinta iyo xantooda ayay faakiha ka dhigan jireen waa markii adduunyada lagu noola waidaa ra'awhum markay muslimiinta gaaladu aragto kuwa gaaladu markay qof muslima arkaan iyo dad muslimiina qaaluu waxay odhan jireen inna haa-ulaa'i kuwaasoo ma aragtaan la daalluuna way habaabeen oo adduunyada raaxadeedii iyo tumashadii iyo khamrigii iyo hallaasigii ayay ka soomeen oo iska afxidheen alla ilaahay kuwaasu waa kuwa haraaday gaajo iyo haraad baa dilay oo salaad iyo foorfoorarsi baa dilay adduunyada raaxadeediina way iska afxidheen waxaanu u aragnaa inay ambadba yihiinoo raaxadii adduunyada naftooda ay ka xidheen wax aakhiro la yidhaah oo ay intifaacsan doonaana aanay jirin idan daaliin weeyaan bay yidhaahdaan waidaa ra'awhu markay muslimiinta arkaan qaaluu waxay yidhaahdaan gaaladu inna haa-ulaa'i kuwaasi la daaluuna ambad weeye waa wax caqli gaaban oo waxba garanayn bay ku xantaan wamaa ursiluu gaalada sidan leh shaqo loo dirtay maaha wamaa ursiluu calayhim gaalada looma diran xaafidiina ka shaqeeya dadka oo idinku darajooyin kala siiya oo kaasi waa habaabay iyo kaasi wuu toosay arrinkaa inay shaqo ka dhigtaan howl ilaahay u abuurayba maaha waa qowm aan garanaynin qasdigii iyo ujeeddada ay adduunyada u joogeen ma iyagaa lagu yidhi diiwaan ka qora bini aadmiga oo daba jooga oo camalkooda ilaaliya looma diran waa waxa weeyaan ilaahay wuxuu leey markaa waa duul wax magarato ah oo shaqadii loo diray waxaan ahayn bay ku foogan yihiin wakhtigoodina meel cidla ah bay ku lumiyeen wamaa ursiluu calayhim looma diranin baa ilaahay yidhi gaalada xaafidiina inay dadka iyagu kaantaroolaan falyowma maanta oo aakhiro la joogo aladiina aamanuu kuwa mu'miniinta ahi yadxakuuna waxay iyana maanta ku qoslayaan min alkufaar gaaladiiba iyana ku qoslayaan oo maanta maalinta aakhiro waxaa qosolkiiyo farxaddu ku dambayn doonaa muslimiinta iyagaana ku faakahaysan doonaa dhibaatada gaalada lagu hayo falyowma maanta oo qiyaamihii ah waxaa bilaamay aladiina aamanuu kuwa mu'miniintii yadxakuuna min alkufaar gaalada ayay ku jeesjeesayaan cala alaraa'iki yanduruun iyagoo sariira ku jiifo halkaa ka daawanaya hal huwiba alkufaar gaaladii sow abaalkooda lama marin maa kaanuu yafcaluun wixii ay kasbadeen adduunyada abaalkiisii sow ma qaadaninoo maalin ay iyaguna daran yihiin oo cadaab ku socdo sow laguma wiirsanin oo gaaladii laguma qoslayo hal huwiba ma la abaalmariyey alkufaaru gaaladii ma la abaalmariyey maa kaanuu wixii ay yafcaluuna sameeyeen adduunyadii abaalkeedii soomay helin nacam wabilaahi towfiiq walaa yunabi'uka midlu khabiir maantana halka casharku haynoogu joogo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu